wanaagsan dhegaystayaal. Afrikada bari waa maalin Arbaco ah 24 bisha Agost sanadka 2025 bisha Agost sanadka 2021. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barkii duhurnimo, halka Washington ay saacadu sheegayso 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka jirin oo constitutionis iyo nidaamkiisu dhan wax shaqaysan ahayd, laakiin xaka markay tageen waxyaalo aad uga barna waxaa ka mid ah qaabka booliisku u shaqeeyaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayd dadku isku ixtiraamaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayd dowladnimada u shaqeyso, dadka canshuuraha ay baxshaan, dowladda qaabka wax ugu qabato. waxaa kaloo dhegaysan doontaan dowrka dhallinyarada ee fanka iyo hal abuurka, kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Israel Naftali Bennett ayaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku booriyo inuu mowqif adag ka qaato waddanka Iiraan marka kulankooda ugu horeeya ay Khamiista Berito ah isugu yimaadaan labada hogaamiye. Bennett oo xafiiska la wareegay 2 bilood ka hor ayaa toddobaadkan Washington ku imaanaya booqashadiisii ugu horeysay, waxaana ka hor inta uusan ka soo ambabixin Israel uu ku celiyey in madaxweyne Joe Biden uu ku cadaadin doono go-aankiisa ku aadan Iiraan. waxaan u sheegi doonaa madaxweyne Biden in la joogo wakhtigii la joojin lahaa Iiraaniyiinta, ma aha in la siiyo wadiiqad nololeed oo ay ugu soo laabtaan heshiiska nukliyarka ee dhacay, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha Israel Naftali Bennett. heshiiskii 2015 ayaa Iiraan cunqabataynta looga qaaday, iyadoo Tahraan ay ku bedelatay inay dhowrto xadidaadda barnaamijkeeda nukliyarka. Biden ayaa soo jeediyey inuu dib ugu noqonayo heshiiska haddii Iiraan ay si dhammaystiran ugu hoggaansanto qodobada ku jira, laakiin wadaxaajoodii magaalada Vienna ee dalka Australia ee 2 bilood ka hor qabsoomay ayaan wax xal ah looga gaarin arrinkaasi. Shiinaha ayaa sheegay in ay xiriir iyo wadatashi wax ku ool ah la furtay Taliban kadib kulan dhex maray wakiilo ka socday kooxda iyo safiirka Shiinaha ee Kaabul. Wang Wenbin oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaan wax faahfaahin ah oo intaasi dheer ka bixinin wadahadaladii Talaadadii dhex maray ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda Taliban Cabdulsalaam Xanafi iyo Danjire Wang Yu. hase haatee waxa uu sheegay in Shiinaha ay Kaabul u aragto masrax iyo marin muhiim u ah labada dhinac ayna kaga wada hadlaan dhammaan arrimaha. Shiinaha ayaa bishii tagtay wadahadallo ku martigeliyey wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha Taliban Mullah Cabdulqani Baradar ka hor inta aysan kooxda la wareegin magaalada Kaabul. Shiinaha ayaa sidoo kale waxa ay weli u furan safaaraddeeda Kaabul, waxaana ay sheegeen inaysan wax qorshe ah ka lahayn in muwaadiniintooda ay ka daadgurayso dalka Afghanistan. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal. waxaa muddooyinkii dambe soo badanayay dhallinyarada Soomaaliyeed ee soo bandhigaya hal abuuradooda dhinaca fanka. Intisaar Saalax Xuseen oo ah wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi ayaa magaaladaasi kula kulantay mid ka mid a dhallinyaradaasi abwaanada ah, waxayna la yeelatay waraysi ku saabsan waayihiisa faneed. Ibraahim Cismaan Afrax oo loo yaqaano Ibraahim Nolosha waa hal abuur dhalinyaro ah. waxa uu sameeyey maansooyin iyo heeso, sidoo kale waa qoraa. Ibraahim waxa uu marti ku yahay barnaamijka dhalinyarada maanta. ugu horeyna waxaan wax ka weydiiyey halkuu kasoo bilaabay hal abuurka curinta heesaha iyo gabayada. Intisaar, aad baad u mahadsan tahay. waana ku dhowahay barnaamijka dhalinyarada maanta. hal abuurkaygu waxa uu soo bilowday sanadkii 2008 markaas oo aan ku sugnaa deegaanka Moqokuri ee gobolka Hiiraan. Ibraahim, wixii ugu horeeyay aad curisa maxay ahaayeen oo aad ku ogaatay inaad wax curin karto? inkastoo aan barbarad ahaa waagaas, haddana waxay ahayd tix ku timid sabab markaas jirtay. waxayna tixdaasi ka hadlaysay qiimo la-aanta qudbasirada iyo in aysan dumarku u qalmin meher xad ama qudbasiro. merisidii haddii aan mid ka mida halkan ka xusana waxaa ka mid ahaa
qaladaadkan farabatay qudbasiradu ka qayb tahay qaadirow inaga bixi qofka aad la jeceshahay qiimiyo wanaag badan qudbasiro lagu mahanto qur-aankeenna kariimka qaadirkeen inagu amray khuraafaad laguma daro. marka tixdaas ayaa markii aan xuriyey saaxiibadii baan la wadaagay, kadibna iyagaa igu dhiirigeliyey inaan wax xurin karo oo aan suugaan samayn karo. inta badan dadku waxay yidhaahdaan dadka curiya gabayada iyo heesaha iyo maansooyinka intaba badi waxay ku yimaadaan dhaxal. adigu ma heybad gaar oo alla ku siiyeyba mise waa waxaad ka dhaxashay waalidiinta? intisaaray runtii qoyskeenna marka la eego ma jirto cid suugaan curisa ama ku lug leh curinta suugaanta. hooyo iyo aabe iyaguna ma aysan ahayn dad suugaanta curin jiray. marka qoyskeenna waxaan u malaynayaa qofka keliya ku lug lahaa curinta suugaanta inaan anigu ahay. waa hagaag ibraahim, waxaa jira hees wadani ah oo adigu aad samaysay laftaadana aad ku luuqeynayso. waxaan jeclaan lahaa bal dhageystayaasha barnaamijka heestaasi siday ku timid iyo weliba inaad noogu luuqeyso dhageystayaasha barnaamijka ay nala dhageystaan. intisaaray heestaas waxaa la yidhaahdaa difaac iyo dagaal. waxaan curiyey oo aan laxankeeda sameeyey sanadkii 2017 markaas oo aan ku sugnaa magaalada Boorame. kadibna waxa aan u dhiibay fanaan cod baxsan oo la yiraahdo Asad Ismaaciil Cali Asad Dheere. muusigana waxaa u tumay Yuusuf Muumin Ibraahim Subxaan. ereyada heestaas haddii aan qeyb ka mida ku maqashiyana: haddaan nahay dadkii dhashiilahay dalkan difaaciyo dagaal diyaar baanu nahay, waxaanu duubanahay danteenna wada jirkiyo bogtaan daweyn lahaa bogtaan daweyn lahaa, dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinta ma dilo anigu ma dilo walaalahay ma dilo, kuwaan diirnaxaynin ee aan dhamaq lahayn ayaan la diriiraya la diriir owaan diidanahay, deegaanada dhulkayga anoon ku daabin calan cawaale oon dulbaban, dangiigsan maya oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooran mayo. marka waxaan jeclaan lahaa inaan sii raacsado heestaas. markii muusigeeda la tumayey waxaan u keenay Yuusuf Muumin Ibraahim Subxaaniyo, kadibna waa uu dhageystay laxankeeda. wuxuu yidhi yaa laxanka saaray? markaasaan ku yidhi anaa saaray. kadibna wuxuu yidhi laxankaaga habdhaciisa waxaadba moodaa heesta waxaa loogu talagalay ciidan inaad loogu talagalay ayaad ii sheegtay. haddana waxaa cajiib ah ayuu yidhi gaardiskii ciidanka iyo laxanka heeska aad u samaysay ayaa isleh, waana la isugu talagalay. hees runtii xusuus weyn igu leh ayay noqotay heesta difaac iyo dagaal. bulshaduna runtii aad u xiisayso ayna igu qadariso. waxaad tahay qof dhalinyaro ah, wacyiga dhalinyarada inta badan iyo xilligan xaaladaha ay ku sugan yihiin wax badan ayaad ka fahansan tahay. ma jiraan wax ka turjumaya xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta aad adigu curisay? waxaa jira buug dhowaan soo baxaya oo la yiraahdo mid. buuggaas waxaa aan ku ururiyey murti iyo mahmahyo aan anigu curiyey ama aan alifay. dhammaantoodna waxa ay ka turjumayaan nolosha inta aan anigu fahamka intaan ka haysto. si gaar ahna dhalinyarada waa uu anfacayaa. murti kasta ama mahmaha kasta ee buuggaas ku jirtana waxa ay leedahay sheeko ama sababtii aan u alifay ama maanso ama suugaan aan tusaale ahaan ugu soo qaadanaya ayaa jirta. ugu dambeyn Ibraahim, maxaad barnaamijka kusoo gabagabayn lahayd? waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo hees aan hooyaday macaan u sameeyey, sidoo kalena aan u hadiyeeyey dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida daafaheeda ka joogaan. hooyaday Jamaad Cabdi Kuure haddii ay wareysigaygan maqlayso aad baan u salaamayaa. heestuna waxa ay leedahay sidan: hooyaday Jamaadi
jeexaan ka beermay jirkaagan ka soo go'ay jir horan dhoweyne hoyo waan ku jecelay jarribo weye fooshuye cadaa maray jidkeedo jiriirico xanuun badan xubnahaaga loo jaro jidcaadaab dareeme intan dunida joogana aanun jaasa guudiyo dhaymaniya jowharada jeexsinkuugu soo dirin jaliil iyo makaadiro. aaday u mahadsan tahay intisaar saalax xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada nairobi. markanna waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabta hees ay ku wada luuqeeyaan saada cali warsame iyo cabdi baadil. intaas aan ku dhaafno heestaasi ay ku wada luuqeeyaan cabdi baadil iyo saade cali. markana muqdisho 10kii sane ee u dambeeyey waxaa soomaaliya aad ugu kordhayay dhallinyarada waxbarashada u doonanaya dalka dibaddiisa kuwaasoo dib ugu laabanayay iyagoo leh aqoon sare. marka laga soo tago aqoonta cilmiga ah waxay sidoo kale la laabtaan waayo aragnimo dheeraad ah oo ku saabsan fahamka guud ee dowladnimada iyo isdhexgalka bulshada. qaar ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ee soomaaliya ku laabanaya ayaa hadda waxa ay qaar u shaqeeyaan dowladda halka kuwo kalena ay si gaar ah u qabsadaan shaqooyin noloshooda ay ka soo saartaan. faarax maxamuud cawaale oo heerkii koowaad iyo kii labaad ee jaamacadda ku diyaariyey dalka bakistan wax badanna aan ka fahamsanayn xilligaasi qiimaha dowladnimada markii uu soomaaliya ka baxayay ayaa hadda
waxa uu u arkaa in dhalinyarada sidiisa oo kale ay yihiin kuwo nasiib badan oo fahamsan qiimaha dowladdu ay u leedahay nolosha aadanaha. wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho oo la kulmay ayuu u waramay. waa ku dhowahay barow. waxawaaye runtii dhalinyarada bakistan tagtay markay halkaas tageen waxyaala badanay ka barteen. waxay ka tageen wadan dowlad la-aan oo 30 sano dowlad ka jirin, oo constitutionis iyo nidaamkiisu dhan wax shaqaysan ahayd. laakiin xagga markay tageen waxyaala aad uga barna waxaa ka mid a qaabkay booliisku u shaqeeyaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayday dadku isku ixtiraamaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayday dowladnimada u shaqayso, dadka canshuuraha ay baxshaan, dowladda qaabkay wax ugu qabato. runtii waxaad dareemaysaa macnaha maxay ahayday wanaagga ay leedahay dowladnimada iyo maxay ahayday shaqada iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo runtii waxyaala fara badan oo hadda meeshan lagu soo koobi karin ayaan mataqaanaa wadankaas aan kasoo baranay oo runtii aan wax badan kasoo qaadan. meelo kala duwanaad kusoo noolaatay, Kenya ay kamid tahay iyo sidoo kale wadankaas Pakistan oo waxbarashadaad kusoo samaysay. waxaad iiga warantaa markii ugu horreysay aad Soomaaliya ka baxdo oo dhalinyaro ah ee wax badan dowladnimada ka fahansanayn, wadan burbursan oo colaado sokeeye ku jira ka baxay, markii kuugu horreysay wadan dowlad leh aad tagtay, waxyaabihii kuugu yaabka badnaa oo aan weli maankaada ka go-in ee ku cajab geliyay? wallaahi waxyaalaha igu yaabka badan waxay tahay sida mataqaanaa qofka fooriyaanka ah oo wadanka markuu tago sida Soomaalida qaabka loo ixtiraamayo, sida mataqaanaa shuruucda iyo sharciyada loogu fududeynayo, sida qofka markuu dukumentigii rabo loo fududeynayo. nis waxay ku tusinaysaa in mataqaanaa qofka markuu wadanka muwaadinka iyo qofka kaleeto oo wadanka mataqaanaa u dhashay qofkan u dhalamo oo ajaanibka ah in ay mataqaanaa yihiin in labadaba ay leeyihiin ixtiraam. siba qofka oo fooriyaanka ah wadanka kala yimid in aad loo ixtiraamo oo mataqaanaa maxay ahayday runtii waxyaalo badan laga caawiyo, guideline la siiyo, mataqaanaa haddii sharciga noqon lahayd, haddii waxbarashada noqon lahayd, in wax badan laga caawiyo. marka waxyaala igu yaabka badnaa waxay ahayday in runtii wadanka Pakistan uu yahay wadan aad u wanaagsan oo weliba siiba Soomaalida aad u qadariyo oo respect siiyo. macnaha maxay ahayday dad ana in horumarshay mataqaanaa dowladnimadooda iyo mataqaanaa wadamada si corruptionka loola dagaalamo iyo macnaha waxyaala badan runtii ayaan meeshaas kasoo faa'iidnay. muwaadiniintu sidee bay dowladnimada u xushmeeyaan markii aad dalkaasi joogtay? sidoo kale waxyaabaha markii aad aragto aad sidhihi jirta leleh sidaan oo kalena Soomaaliya way ku fiicnayd oo waa muhiim inaad qaado fariin noocaana oo aad nala wadaagi kartaa ma jiraan? waxyaalaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya waxay ahayday for example oo kaleeto bulshada waxa aad u shaqeeya, waxa aad isugu dhow bulshada iyo mataqaanaa laamaha booliiska iyo waxa isugu iyo mataqaanaa iyo dadka oo mataqaanaa shacabka iyo booliiska ayaa aad isugu dhow. macnaha waxyaalaha aad u soo bartay macnaha waxa weeye booliisku waa dad oo respectful oo qofka si tartiiba loo wareysana wax la qadirnayo. sida booliiska Soomaaliya kale aan arkay in qofku muwaadinka la handado, in mataqaanaa sometimes xabad lagu tuuro, in mataqaanaa weli aysan laamaha booliisku u bislayn, in mataqaanaa bulshada iyo ayka aysan weli aysan qofka booliiska uusan ogeyn qofka u shaqeyn inuu bulshada yahay. macnaha waxyaalaha marka oo difference u weyn ay tahay. marka waxaan rajaynayaa in ayadana mataqaanaa intaas loo tusaale ahaan loo qaato. marka laga yimaado in si shakhsi ah aad u arkayseen nidaamka dowladnimada islamarkaana aad lahaydeen waa muhiim dalkeen fariin noocaana loo qaado, haddana weli dhallinyaradiina xagga joogtay ma iska waraysateen oo ma istiraadeen halkan cashir baa yaala dowladnimo laga baran karo Soomaaliya lagu dabaqi karo oo aad ka fadhiisateen ama aad wax isaga sheegteen ma jirtaan? wallaahi runtii qof kastaba fikirkaas uu ku jiray oo mataqaanaa waa maskaxdiisa uga guuxaysay. laakiin nasiib darro macnaha waxa waaye mataqaanaa dadkii inay nidaamka dowladnimada ka shaqeeyaan amase waxyaalihii ay soo arkeen ku tabaqaan macnaha jaanis maysan u helino, fursad ma loo siinin. marka waxaan aaminsanahay haddii dhalinyarada wax baratay amase wadamada kala duwan Pakistan ha noqoto, Malaysia ha noqoto, meelaha wax kasoo noqotay, haddii jaanisyo loo siiyo in ay mataqaanaa institutionada dhan ay ka mid noqdaan, waxaan aaminsanahay in ay wax badan ay bedeli karaan. aaminsanahay runtii waxyaaba ay bedeli karaan maxaa kamid ah adiga aad nala wadaagi kartaa? wallaahi waxyaala ay bedeli karaan waxaa kamid ah
sida hadda laamaha amniga u shaqeeyaan oo kaleeto booliiska oo kaleeto haddii nimankaas oo kaleeto wax badan ogyihiin haddii tababar loo siiyo waxyaalaha ay bedeli karaan waxa waaye sida u shaqeeya mataqaanaa constitutionada oo kaleeto mataqaanaa ama noqotaan mataqaanaa wasaaradaha ama waxyaalaha kaleeto ha noqoto marka runtii waxyaalaha kale bedeli karaan waxa waaye mataqaanaa sida qofka canshuuraha la aruurinayo oo dadka laga aruurinayo maxaa taxes return la dhaho qofka canshuurta inta laga qaado lagu celiyo mataqaanaa wadamada inta badanba ka jirto marka runtii waxaan aaminsanahay dad systemkii nidaamka fahansan waaye in wax badan ay ka bedeli karaan waxaas dhan waa waxyaala loo baahan yahay daruuriga waa tahay sidoo kale jaamacadihi baa halkaas kasoo dhigateen arday kala duwan dalal kala duwan ka yimid kuwa dalkii u dhashay Pakistan ayaad la kulantay sida dhalintaas u fikirayeen sida Soomaalida u fikiraysa maxay ku kala duwanayeen wallahi waxyaalaha aad u kala duwan tahay because macnaha waxa waaye Soomaalidu waxa iska dhici karto inuu nin kastaba oo ama Soomaalidu waxyaalaha aad noogu batay waxay kamid tahay mataqaanaa qabyaalad iyo in hebel iyo waxaas laakiin dadkaas waxyaalaha sida u fikiraan ana waxa waaye qofka Pakistanka ah ama sida Pakistanta waxay jecel yihiin qofka markuu jaamacadda ka baxo wuxuu aad u jecel yahay inuu ka mid noqdo maxay ahayd Pakistan Army inuu ciidamada kale jecel yahay because raasna markaa weydiisad wuxuu ku leeyahay macnaha waa jaaniska kaliya ee mataqaanaa macnaha wadankan waxa lagu horumarin karo oo wax looga qaban karo wax looga bedeli karo marka taas marka waxay ku tusinaysaa inuu qof nin kasta oo rabo inuu wadanka mataqaanaa qaabka u horumarin ugu sameyn lahaa wadankiisa iyo taas laftirkeenu ayaala ayaan aad ugu fikiri jirnay waxay kamid ahayd warniyahu wadankii sidee mataqaanaa horumarkiisa looga shaqeyn karaa sidee mataqaanaa nidaamka dowladnimada loo soo celin karaa waxyaalaha aad noogu weyn ay ahayd marka harakada badan saaxiibada kamid ah kolbo oo fikirkaas nagu jir systemka waa ka dirsiin harag badan wali ma chance uma helin banaanka ka joogaan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala mustaqbalka in ay wax badan isbedeli doonaan kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Cawaale oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku baratay dalka Pakistan wuxuu u waramayay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Faarax Blue ayaa inoo haya bilowna dhegaystayaal wararka ka imaanaya wadanka Spain ayaa sheegaya in Real Madrid ay soo bandhigtay dalab dhan 160 milyan oo euro si ay ula saxiixato Kylian Mbappe kaas oo durbadiiba ay diiday PSG sida ila waradiyo u xaqiijiyeen ESPN ila ku dhow Real Madrid ayaa qiray in wada xaajoodku adkaan doono laakiin waxay weli rajaynaysaa inay ku qanciso PSG inay ogolaato heshiiskan ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo 31 bishan ku eg dhanka kale ila waradiyo ku sugan Faransiiska ayaa u sheegay ESPN in Madrid ay u baahan tahay inay dalabkan gaarsiiso 200 milyan si ay fursad ugu hesho dhamaystirka saxiixan qandaraaska Mbappe ee PSG ayaa dhacaya xagaaga soo socda waxaana 22 jirkan oo hore u cadeeyay inuusan diyaar u ahayn heshiis cusub PSG ayaa rumaysnayd in imaatinka Lionel Messi uu bedeli karo go'aanka Mbappe laakiin taasi ma dhicin Mbappe ayaa muddo dheer ahaa bartilmaameedka gudoomiyaha Real Madrid Florentino Perez waxaana sidoo kale Madrid ay dhawaan xaqiiqsatay in shakhsiyan ciyaaryahankan uu xiiseynayo ku biirista garoonka Santiago Bernabeu dhaqaalaha Madrid waxaa saameyn xoog la ku yeeshay COVID-19 hase yeeshee si taxadar leh oo ay sanadihii lasoo dhaafay dhaqaalaheeda u maareysay Madrid waxay sanadkan ku dartay 81 milyan oo ay ku iibsatay Rafael Varane iyo Martin Odegaard taas oo u sahlaysa maalgelinteeda Mbappe kooxda Tottenham ayaa la xaqiijiyay in dhigeeda Manchester City ay ka diiday 130 milyan oo gani oo ay u soo bandhigtay baaca laacibkeeda weerarka Harry Kane warku wuxuu intaas ku darayaa in Tottenham ay doonayso qiimo lacageed oo gaaraya 150 milyan isla markaana aysan diyaar u ahayn qiimaha ay Manchester City soo bandhigtay Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay ka faa'iideysanayso go'aanka Kane oo ah inuu ka dhaqaajiyo kooxda Tottenham xilli ciyaareedkan horaantii toddobaadkan Daily Telegraph ayaa sheegtay in City ay bilaabi doonto hal isku day oo kama dambaysa si ay gacanta gudoomiyaha Tottenham Dani Levy uga soo mareejiso Kane toddobaadkan ugu dambeyntiina dhegaystayaal ciyaartooyda gabdhaha kubadda cagta wadanka Afghanistan ayaa laga dhoofiyay wadankaasi kadib markii toddobaadkan ay gacanta Afghanistan ku dhacday ururka Taliban
75 ciyaaryahan iyo qoysaskooda ayaa dowladda australia ka daadguraysay magaalada kabul, kuwaas oo labadii toddobaad oo lasoo dhaafay dalbanaya gargaar samata bixin ah. bayaan ka soo baxay ururka kubadda cagta adduunka ayaa looga mahad celiyay dowladda australia doorka ay ka qaadatay badbaadinta gabdhaha kubadda cagta afghanistan oo la aasaasay sanadkii 2007 ayaa waxaa daalibaan ay falkaasi u arkaysay mid fasahaad ah. kabtankii hore ee xulka gabdhaha kubadda cagta afghanistan khadiija pobel oo qayb weyn ka qaadatay dhoofka ciyaartooydan ayaa dhowr jeer oo hore ciyaartooydan ugu baaqday inay tirtiraan sawiradooda iyo ciwaanadooda baraha bulshada si aysan daalibaan u aqoonsan muuqaalkooda islamarkaana aysan uga aargudan. xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa. aad ayuu u mahadsan yahay faarax buluu oo nala socodsiinaya wararkii cayaaraha. markanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta.